dadka Soomaaliyeed maanta waxa loo sheegayaa dan qaran baan ka tarjumaynaa qarankii oo la kala gooyay oo la soo weeraray oo ayaan hal maalin laga hadal oon hal maalin la cambaaray oon ilaa maanta ra'yiga laga qaba aan la ogeyn dastuurkan halkan lagu malmalooqayo oo dadka la leeyahay ma tegi kartaan oo maalin walba maaragtay dagaalku ka dhacayo ciduu dastuur u noqonayo mal run baa idin sheegay dowladda federaalka Soomaaliya waxay mar kale ku celinaysaa in albaabada wada xaajoodka u furan yihiin cid kasta oo u diyaar ah wada hadal dhab ah iyada oo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka. Bismillah. Salaamullaahi calaykum wa rahmatuhu wa barakaatuh. Kulanti wacan wanaagsan ummad Soomaaliyeed dilahaantiin basikin kasta iyo saacad kasta idin tahay. Saliga nabiga suubanaheena sallallahu alayhi wa sallam ha hilmaaminina waqti salaad haday idin tahay soo tukada kadibna isu keenkeena Ramadan mubaarak. Inta kadib Saciid Cabdullaahi Deni iyo al-Cadaala ninka la yiraahdo wasiirka xigeenka warfaafinta wasiirka aan xilkiisu dhamaan xoogga ku haysta telefishinka qaranka Soomaaliya afduubku ku haysta macnaha uu afduuban yahay abadanba weligiisba abka soo gaarka ah ninkaas iyo Saciid Cabdullaahi Deni Saciid Nigeria ama sida kale Saciid Qurux hadba sida u taqaanid baynu u garnaqaynaa si cadaalada labada ninna waxa lagu xantaa hada Saciid waa la og yahay oo in badan imaaraadkay ku xantaan saasaana lagu yaqaanaaba waa lagu xantaa kanna waxa lagu xantaa qabyaalad al-Cadaala lama dhahe bay dhaheen al-qabyaala la yiraahdaa waa nin aad qabyaaladu ay lafaha uga gashay oo qaab noocaas ah labada nin xantooda fuleexantiisa ma mooga marka labada ninba saasa lagu xantaa laakiin bal waxaynu waa u garqaadaynaa warsaxaafadeed bay dowladda Soomaaliya soo saartay ay kaga hadlayso warsaxaafadeedkii waxa loo soo dhiibay wasiirkaana loo soo dhiibay wasiirkan marka wuxuu ka hadlayaa arrimaha Soomaaliya iyo qaabka wuxuu jiraan iyo buu ka hadlayaa laakiin Saciid Cabdullaahi Deni xamar buu yimi xamar markuu yimi shir saxaafadeed uu qabtay baa waxa kamid ahaa erayadan aanad hadda bilowga ku soo aragteen mar labaadna waa idinku celinaya ninkan kale oo Saciid Qurux ama Saciid Nigeria u jawaabaya oo al-qabyaala la yiraahdo isagana ama al-Cadaala la yiraahdo isaguna hadal buu oranaya bal waxaynu samaynaynaa wax yar intaynaan bal saxaafadeedka dowladda Soomaaliya ay soo saartay aynaan wax ka oran bal hadalkan ila fiiriyo Saciid markuu xamar yimi hadalka uu yiri baynu ku hormaraynaa halkan lagu malmalooqayo oo dadka la leeyahay ma tegi kartaan oo maalin walba maaragtay dagaalku ka dhacayo ciduu dastuur u noqonayo mal run baa idin sheegay madaxweyne xasan sheekh iyo aadan mudawad dastuur u noqonayo inay jirta anu ma garanayo ciduu kale u noqonayo mar hadduusan u noqonayn oo dadku heshiis ku noqonayn wixii yaraa oo aan heshiiska ku hayno hore aynu ku dhaqanno inta aan heshiis buuxa ka gaarin laakiin inuu federaalka gudbiyo dadka Soomaaliyeed khatar bay u jirtaa dastuurkan halkan lagu malmalooqayo oo dadka la leeyahay ma tegi kartaan Saciid Deni ama Saciid Qurux hadalka uu sheegayaa in dastuur uu malmalooqanayo Xasan Sheekh waa sax been ma waa kelmad run ah dastuur aan la isku waafaqsanayn raali la isaga ahayn ummadda Soomaaliyeed aysan ku qanacsanayn maamuladu aysan ku qanacsanayn cid ku qanacsan oo inta madaxweyne Xasan la socota aan ahayn ma jirto waa runtiis waa kelmad xaq ah oo ka soo baxday afka Saciid Cabdullaahi Deni laakiin Saciid Cabdullaahi Deni ma aha muwaadin dhaba oo Soomaaliyeed ma aha sida anigu aan arko waay fikirkayga hay ugu yaabin waxa ka darnaan doona al-qabyaala hadalka ka soo baxay isagana dhigeyso dadka Soomaaliyeed maanta waxa loo sheegayaa dan qaran baan ka tarjumaynaa qarankii oo la kala gooyay oo la soo weeraray oo ayaan hal maalin laga hadal oon hal maalin la cambaaray oon ilaa maanta ra'yiga laga qaba aan la ogeyn dadka Soomaaliyeedna waa dhageysanayaan waxa la rabaa in looga hadlo qaar badan oo kamid ah dadka maanta jooga marka xaqiiqadu waxay tahay dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin run inay ku noolaadaan runna ku wada hadlaan muxuu ahaa waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkooda ayaga iska leh dalkaana waa soconaya
doorashaduna waa soconaysaa dowlad aad u qalantaan oo dimuqraadi ayaana dalkan ka talinaysa insha Allah dadka soo isagu waxa uu ka hadlay hadda laba kelmadood waxaan ka soo qaadanaynaa waa kelmad aad u macaan oo fiican oo run ah run laakiin nin qabyaalad lagu tilmaamo afka laakiin nin alqabyaala lagu tilmaamo nin afduub ku haysta telefishinka qaranka Soomaaliya oo afduub ku haysta isagoo afduubay telefishin qaran ma jiro waa telefishin alcadaala uu xoog ku haysto runtu fool xumaa runtu wax ka qurmoon ma ogtahay dad badan baa ka qaracmaya marka kelmadaas xaqa asheegtid marka ninkaas afka xoog ku haysta telefishinka qaranka kelmadda uu ku hadlayo waa sharci ilaa ay hadda lama yaqaan Saciid Cabdullaahi Deni kala goynta dalka Soomaaliya waxa uu ka qabo lama yaqaan manaba cudurba kamaba qababa dhibba uma arko Saciid Cabdullaahi Deni u fiirso Saciid umaba arkaba wax dhib ah dalka in la kala jaro Somaliland markii la ictiraafay oo ay ictiraaftay yuhuud ilaa iyo maanta waa dhuxul dambe suwan waa ka aaminsan yahay kama hadlin halkan wuxuu la taagan yahay kelmad xaq ah dastuurka la isku waafaqsana waka marka labadooduba waxay ku dhawaaqayaan waa kelmado xaq ah way ku dhawaaqayaan kan run buu ka sheegay oo yiri waxa uu ka aaminsan yahay wali lama la garanayo Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu ka aaminsan yahay lama yaqaan in la kala gooyo dalka Soomaaliya isaga ba aaminsan hadduusan aaminsanayn war ma aaminsani buu dhihi lahaa dalka midnimadiisa aaminsanahay meel uu dalka midnimadiisa ku sheegay lama yaqaan kaliya markuu ka hadlayo wuxuu sheegaa marka uu ka hadlayo Puntland dalka yaan la kala jarin annagana yaan la jarin buu u jeedaa oo ilaa wuxuu soo wadaa confederation wax la oran jiray buu hadda soo wadaa Saciid hadda soo wadaa waxa uu xamar ilaa iyo hadda weli isagu Axmed Madoobe confederation filinka kula jiro waa iska tagay soo roogid laakiin isagu mabda kala jira oo u qarsoon oo rabo in uu isagu xagga aado oo uu la tago Puntland kadibna uu yiraahdo annagu waxaanu nahay maamul gaar ah waxna naga maqsayaan dawlad Soomaaliya wax sideedaba naga galay ma jiraan buu soo wadaa isagoo soo wada kani marka waxa uu sheegaya waa runo ma cadda waa alqabyaala markaynu eegno hadalkiisa ma cadda buu leeyahay hadalka dad baan ilaa iyo hadda waxa ay ka aaminsan yihiin xataa ma garanaysaa dalka in la kala qaybiyo dad baysan cadayn dadkana wadaniyad u sheegay waa runtiis Saciidna waxa uu sheegayo oo uu ka hadlayo oo dastuurka la iska goosanayo oo Axmed Aadan Madoobe iyo madaxweyne Xasan ay wataan oo gaarka waa runtiis isaguna hadda waa ninka aragtaan laakiin wuxuu wataa waxa uu ka hadlaya waa sharci waa runtiis oo waaba kan hadda kan sheegayo wuxuu wataa in uu maamul macnaha boqortooyo inuu dhisto u gaar ah oo la yiraahdo mamlakatu Xasan Sheekh Maxamuud in Soomaaliya laga sameeyo waa systemka kaliya oo uu hadda rabo madaxweyne Xasan inuu ku dhaqmo ninkan hadda maartay alcadaala ma oran karee ninka afduubka ku haysta telefishinka qaranka isaguna waa kanuu hadda ku hadlayo bal hadalka marka war saxaafadeedka ay soo saartay dawladda Soomaaliya bal ila dhageysta halkan baad ka fahmi doontaa waxa mamlakata Sacuudiya ma maqli jirtay mamlakata Carabiya ma maqli jirtay mamlakata Imaaraat marka mamlakata Urdun ma maqli jirtay binu Haashimiya tanina waa mamlakatu Xasan Sheekh Maxamuud al-Muqdishiya daawo u fiirso dhageyso marka in golaha mustaqbalku ay soo saareen bayaan balmarsan habraacyadii nuxurkii iyo ruuxdii wada xajoojiyada labada maalmood socday iyo kulamo duceedyadii gobol xarka ahaa ee ka horreeyay taasoo dhaawacaysa geedi socodka wada hadal dowladda federaalka Soomaaliya waxay markale ku celinaysaa in albaabada wada xajoodka u furan yihiin cid kasta oo u diyaar ah wada hadal dhab ah iyada oo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka ugu dambeyn dowladda federaalka Soomaaliya waxay adkeynaysaa inay ka go'an tahay hirgelinta hannaan doorasho oo waafaqsan dastuurka dalka kana tarjumaya rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyadoo la ilaalinayo midnimada qaranka dowladdu waxay sii wadi doontaa dadaalada ay ugu jirto dhismaha mustaqbal qaran oo midaysan nabad ah dimuqraadi ah isla markaana ku dhisan dowladnimo waarta iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantihiin
وما سنت بشير سيدان إدين شاقي أنتي أنا فرمين قوش وحاجري ولا حاجود أي شين وديو فرسمو ولا بدنا نحكي سعودي كاسو اللغة اللي إن سورة أجندها شكل لغة هالدوار أجندها سيدان إدين شاقي ولا سورة ولا نحكي مع سنت خلط إن نديسو عملنا سميو مروها جودي كاسو ترد هي دورشوينكا فريالكا iyo in laga doodo qabashada doorashada dowlad goboleedyada iyo sidoo kale in bisha April ee soo socota hadii la yiraahdo la isugu yimaado kulan labaad oo isla bugasha si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka federaalka hasa haatee waxaan sidraa in marka wada hadlo ay furmeenba in xubno kamid ah madashu ama golaha waa madaxa mustaqbalku ay la yimaadeen jadiyal kale oo sidaan idin sheegay aan ku jirin wixii lagu ballamay shaqo looga wada hadlo taasoo ahayd waxaan xaq u lahayn in laga hadlo waxa waa arrintan kasnay oo ku saabsan in dowlad goboleedyo kale doorashooyinkooda aan xaq u lahayn ayagu ay fargeliyaan oo ay markaa miiska soo saareen waxaan idin tusaalaynayaa qodobo yaryar oo qof walba oo caqli leh oo Soomaaliya uu fahmi karo qofkan fahmi karin de oo wax kala inda tireen inuu ka hadlin laakiin wax walba qof walba uu fahmi kara Soomaalida siyaasiyiinteedu waa muwaadin xilliga uu xilka hayo waa muwaadin Soomaaliyeed badda in laga hadlo ma ogola badda annaga leh Soomaaliya ilaa Raas Casayr ilaa Raas Kaamboor in la lawiyado badda lagama hadli karo okay ma laga hadli karo Kenya ka hadli karin Ethiopia ka hadli karin wadamo shisheeye aan ka hadli karin waa muwaadin dhaba markaas waa markuu xilka hayo laakiin markuusan xilka ahayn dawladaha shisheeye waa walaalihiis cidda dalka ku soo duusha bad iyo berri iyo dhul iyo cid kasta itraaf iyo ber waxa doonto waa walaalkiis marka muwaadinka marka siyaasiga Soomaaliyeed waa ina fahantaa hadda kan alqabyala oo la soo taagan midnimada Soomaaliya muqaddaska kama hadli karo baalki shalay markii dawladda Soomaaliya ee tan ka horeysay ee Farmaajo uu Imaaraadka la dirirayay Kenya uu la dirirayay labadaba wuxuu la jiray Kenya oo alqabyal keligii markaan soo qaadano ka rawo laba saar u bedel Xasan Sheikh labada Kenya iyo wuxuu la jiray Imaaraadka waxay ahaayeen dadka saxda ah waa dadka walaalaheena dadka dalka wuxuu qabtaa dadka aan laga joogi karin dad maantana maxay yihiin Imaaraadka banaanka u dhigay wuxuu yiri waa cadowga koowaad aan leenahay weeye xataa waxyaabihii ay dawladda siin jireen buu inkiray oo yiri waa saasay sameyn jireen inta ayna siiyaanna lugooyo uun bay ahayd buu taagnaa inta ayna siiyeen oo ay dawladdu ku kabi jireenna lugooyay ahayd keligii maaha marka waxa aaminsan fikirka ku dhaqma siyaasiyiinta xilka markay hayaan muwaadiniinta ah laakiin xilka markuusan hayn aan muwaadinka ahayn hadda Saciid Cabdullaahi Deni miyuu ka hadlayaa dawladda shisheeye miyuu ka hadli karaa badda Soomaaliya marka laga hadlayay Kenya xilligeedii xilligii Ethiopia xilligii ma garanaysaa hadda oo ay taagan tahay iqtiraafkii Soomaaliland ay Yuhuud iqtiraaftay miyuu ka hadlay soo ka hadlay ma maqlayseen may laakiin hadduu maanta madaxweyne Soomaaliyeed noqdo ana dalka ka wakiilay uu leeyahay waa muwaadin ku hunguri Xasan Sheekhna waa muwaadin hungurigiisa la socda muwaadinnimada waxay kala tahay labo inna waa muwaadin ah booskii shalay uu ka taagnaa dalka Soomaaliya in la kala qaybiyo booskii uu shalay ka taagnaa waa siyaasiga muwaadinka ah booskii uu shalay ka taagnaa in la kala qaybiyo dalka in dawladda shisheeye soo fargeliyaan booskii uu ka taagnaa buu maanta isagoo mucaarada taagan yahay waa muwaadinka dhabta ah oo siyaasiga ah waa kan la yaqaan oo caadiga ah haddaynu damacno inaan tilmaano rag baynu ka tilmaami karnaa anoon tilmaamin baa adiguba garan kartaa shalay mowqifkii uu Imaaraadka ka taagnaa uu maanta ka taagan yahay shalay kii uu Kenya ka taagnaa uu ka taagan yahay shalay kii Ethiopia ka taagnaa uu ka taagan yahay shalay kii uu beesha caalam ka taagnaa uu ka taagan yahay maanta isagoo aan ahayn xil aan gacanta ku hayn laakiin waa siyaasi shalay markuu xilka hayayna sidaas la mid ah buu ahaa kuwan kale ee siyaasi muwaadin hunguri baa la yiraahdaa waa muwaadin hunguri waa muwaadin xilka markuu hayo waa muwaadin laakiin xilka markuusan hayn muwaadin maaha waa cadowga Soomaaliya la socda oo la safanya marka ha la yaabin hadda labada nin oo istuqaynaya labaduba waa siyaasiyiinta hunguriga xilka ku ah waa muwaadiniinta xilliga dawladda ay yihiin maanta Saciid Cabdullaahi Deni Puntland buu haystaa waa muwaadin Puntlandara
oo xaqa iyo xuquuqda ay leedahay si dhaba ugu dooda laakiin hadduu xilka ka dego waa qofka koowaad oo ka hor imaanaya wey keligii maaha waa siyaasiyiinta xilka intay hayaan muwaadiniinta sababtoo ah dalka uu maanta mas-uuliyadda u hayaa keliya ma aha Puntland Soomaaliya oo dhan baa la rabay inuu matalo because hankiisu wuu dhaafsan yahay hankaagu ha dhaaf reer hebel sheekada ahayd hankiisu Saciid Cabdullaahi Deni sida la og yahay wuu dhaafsan yahay Puntland hankiisu waa Soomaaliya marka waxaa la rabaa inuu weelkee tosho oo sideed u dhaqmo oo sideed ka hadlo runtu waa aad bay u qurmoon tahay waa wax falxun waa ceeb waa wax xun way waa xun runtu in la sheego ma fiicna Saciid ma aha muwaadin Soomaaliyeed waa muwaadin hungurigiisa iyo laftiisa hadda u dadaalo way laakiin hadda alqabiyaalahan aynu isagana soo qaadanay haddii Xasan Sheekh Maxamuud hadda uu ka qaado xilka afduubka uu ku haysto afduub uu ku haystaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta waxa loogu ilaalinayaa waa telefishinka qaranka wuxuu ku haystaa haddii laga qaado oo madaxweynuhu uu damco inuu ka qaado waxa ka dhacaysa lama arag iyo lama maqlayo kaadida u soo cabo halkaasuu istaagayaa uu soo istaagayaa mana aqaani madaxweynena ma aqaani cidna ma aqaani awood in loo sheegto oo dhab xabsi guri la geliyo iyo adigu filin noocaas adeegsi awood in loo adeegsado aanu garanayo laakiin si kale lagama fujin karo marka inta uu muwaadinka yahay waa intuu xilka hayo sababtoo ah shalay dawladdii Soomaaliya afkeeda kuma hadlayn isagoo telefishin qaranka haya wuxuu ku hadlay qori jiray xilligii farmaajo wuxuu qori jiray mucaaradad buu qori jiray oo markii magaca alqabiyaala loo bixinayay si kasta ha ahaatee labadaani waxay tusaale u yihiin wasiirkaas iyo wasiirkii hore isaguna Soomaaliya haddana madaxweynaha Puntland labaduba waxa ay ku astaysan yihiin iyo ragga maanta madaxda ku jiraaba waxay ku astaysan yihiin shalay wixii ay ahaayeen ma aha maanta waa muwaadiniin dhalad ah dalka Soomaaliya lagama ag maro wixii dhibaato ku hayana waa la dagaalamaan laakiin xilka haday ka degaan qof dadka ugu horeeya oo qoriga Soomaaliya u soo qaadanaya waa iyaga intaas ayaan ku soo gabagabeeyay barnaamijkeena waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nabadgelyo nabadiino iyo nolol kulantay doorsaniyo weersan